center kan la furay ama halkan departmentiga laga furay ee maanta aynu u dabaaldegayno oo ku soo aaday isbuucii xorriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed oo isugu hambalyeynayna si gaar ah waxaan ugu hambalyeynayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxaan sidoo kale u hambalyeynaynaa qurba joogta Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku nool qurba joogta Soomaaliya dadka Soomaaliyeed qurba joogta ahi ma aysan dooran inay qurba joog noqdaan ayagu duruufaha ku qasbay duruufaha geeyay dunida daafaheeda laakiin dadka Soomaaliyeed oo ah dad xariir ah oo asal leh oo dhaqan leh waxay muujiyeen resilience aad iyo aad u weyn oo ka duwan ummadaha kale qofka Soomaaligu ma jabe u leeca waxa la yiraahdaa gobtu ma jabtay way leecdaa marka dadka Soomaalidu sidoodaba ma jabaan waa dad markay duruuftu ku dhacdo adkaysi badan waa dad leh la qabsi degdega iyo markaba inay noloshooda dib u abuurtaan meeshii tagaanba ma aqbalaan kumana noolaadaan dulinimo kama tagaan dhaqankooda diintooda iyo Soomaalinimadooda kuma milmaan boqolkiiba boqol dadka ee isku meel bay degaan oo isla socdaan waxay durbadiiba la qabsadaan wadamada ay tagaan waxayna noqdaan meel walba ay ka mid noqdaan haday tahay siyaasad iyo haday tahay dhaqaalaha iyo haday tahay aqoonta meel kasta si degdeg ah ayay ula falgalaan isla markaana ay noqdaan dadka wada ay soo galaan top 10 dunidu way la yaaban tahay wadamo badan baa wixii inagu dhacay taariikhda ay ku soo dhaceen oo burburay oo jabay dadkoodii meel lagu sheega ma leh markay meelahaas aadeen ama ay tageen ama ay jabeenba wadamadii ay u tageen bay si toos ah inta jabeen ayay wax walba waxoodii qaateen diintii bay ka baxeen dhaqankii oo dhan bay bedeleen afkii bay bedeleen ayaga laga yaabaa inaysan is aqoon laakiin dadka Soomaalidu sidaas ma aha dadka Soomaalidu meeshay tagaanba magaaladay degaan iyo dhulkay tagaan muqdishadii yarayd iyo loo yaqaanaa marka business kooda ay furtaan communities kooda isku xidhma dadka Soomaalidu marka dadka saas ah waay taasa waxay keentay inay maanta dunidu is weydiinayso oo meel kasta lagaga hadlaayo oo ay unfortunately dadka qaarkood iyo madaxda caalamka qaarkood ay rabaan dadka Soomaaliyeed inay si xun annaguna hooseynta ma naqaan dan Soomaalida kan ma yaqaan marka hiidkaas gaaray ayaa cabsi weyn laga qabaa meeshan uu soo degayaa hadduu soo degana kama tagayo dukaan buu ka furanayaa kadibna dhakhtar buu ka furanayaa kadibna uu sii soconayaa kadibna congress ku galayaa kadibna intuu galayaa uu keenkeenay xijaabka la dhex fadhiisanaysaa meesha marka dadkeenu yaysan shakin yaysan cabsan yaysan u malayn waxa laga sheegay in ayagu inay yihiin yaysan u malayn no kuwa sheegaya cabsanaya ayay ka cabsanayaan dadnimadooda og yihiin way la yaaban yihiin qof aan wadankan u dhalan oo madow ah oo muslim ah oo shalay soo galay oo asaga oo magangeliya doona oo xabadii ka daba dhacaysa soo galay oo haddana
xukunka igu haysta taas way su'aashu meeshay ka imanaysa meeshaas waay marka waa dad mucjiso ah oo mustaxiilaadka sameeya waxyaaba adag tahay inay bulshooyinka kala sameeyaan ayay sameynayaan taasaa marka keenaysa in laga cabsado waxaan rabaa dunida inaan u sheego dadkanaga ha ka cabsanina dadkanagu dhaqaalihii inay kordhiyaan idinka idin dhisayaan waxbay idin taraan ilbaxnimadana idin gaarsiinayaan isjacaylkanaga in wax laysa siiyo wax laysu huro shaaha la iska bixiyo waan ognahay iskama bixisaan idinku dadkanaga idin baraya ka qaata dhaqanka wanaagsan ee leeyihiin inay daraaseeyaan ayaan rabnaa phenomenahan Soomaaliga la yiraahdo wax caadi ma marka qurba joogta Soomaaliyeed dhowr iyo soddonkii sano ee dalka iyo ka sii fog actually ilaa iyo 88 ilaa waqooyi dagaaladu ay ka dhacayeen xilliyadaas qaxa ay bilowdeen waaweyn ilaa iyo xilligaas dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jira ama qurbaha tagay ee qaxay inta tageen deedna shaqo abaabusheen meesha iska fadhiisteen iska muna fadhiisan qofka markuu qaxo soo kaligiisa meeshaas markuu tago wuxuu ka fakarayaa hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis iyo adeeradiis iyo tolkiis iyo saaxiibadiis deedna uu soo xamaalaya lacagtu halkaas uga soo diraya waxyaabaha dunidu ay fahmi leedahay waxaas ka mid ah waxaasna waa dhaqan aan leenahay oo hanti ah oo annaga aan leenahay oo nalaga qaadi karin marka hanaga daysadaan ay diidin yeesay nagu culaadinin waanu hambalyeynaya qurba joogta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan runtii halkan aan ka sheego de maalmahan waad u jeedeen oo wadamo badan oo visa restriction aan Soomaaliya saarayna gaar ahaan European xogaa dawladda ama xukuumadda waxay ku eedeynayaan ama ku eedeeyeen in aan diidanahay dadkeena oo leenahay aan la keenin arrintaasna sida madaxweynuhu aan filayo inuu ka hadlay maalin dhaweyd xaqiiqadu sidaa ma aha dadkeenu dalka ayaga iska leh qof u diidi kara male ma badiidi karaba qof Soomaali oo qof kale dalkiisa u diidi kara ma jiraan dalkiisa xorriyad buu ku imaan karaa goortu rabo imaan karaa cid u diidi kartana ma laha laakiin waxaan u baahanahay inay dadka nagu xuquuq helaan sida loo soo celinayo inay noqoto wax qancin kara oo sharcigooda xataa waafaqsan waxaan u baahanahay in aan hubino qofka Soomaaliga inuu Soomaali yahay dariiqa lagu soo celinayaa inuu yahay dariiq sax ah anaga intaan doonayna waa intaas wixii inta ka soo haray dalkan ayaga leh waana u soo noqonayaan cid u diidi kartana ma laha waana u sheegnay waana u qornay waana u cadaynay sabab marka fiisaha Soomaalida loogu adkeeyay ma jirtaba waan u mahad celinaynaa dhammaan intii ama wadamadii runtii dadkeena soo dhaweeyay sharciga siiyay shaqada siiyay fursadda siiyay ay ku noolaadaan ay ku joogaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan saleenahay dadka Soomaaliyeed ee aad moodo in maalmahan meelo badan laga taargetsanayay arrintaasi sax ma aha dadkeenu meeshay tagaan value added bay u yihiin laakiin khasaaro kuma aha malaayiin dollar bay geliyaan business bay geliyaan canshuurtay bixiyaan
marka contribution kooda aad u xoog badan yahay ma aha dadkeenu dad kaliya oo dad wax u la siiya ma aha waa dad wax celiya dadkeenuna inay culayska la saarayo iyo hadallada aan fiicnayn dhageysanayaan inayna isu qaadanin marnaba inay sidaas yihiin midda ugu daran waxa weeye inay dadkeenu moodaan waxa lagu tilmaamayo mararka qaarkood inay yihiin ma tihidin meel aan la rabin in la gaaro ama la taataabateene sii socda halkaas ku sii haye waxaan rajaynayaa wasiir inay xaruntani noqoto xarun ma aha inay iyagu kaliya ka looga faa'iideeyaane in laga faa'iideeyo khibradooda iyo aqoontooda iyo dhaqaalahooda in ay noqoto meeshii ay laga tusi lahaa fursadaha yaalla dalka si ay u maalgashadaan si ay maskaxda iyo aqoonta Soomaaliyeed u soo noqoto si ay u ogaadaan dalkoodu inuu u baahan yahay wacyigelintu meesha ka baxaysa halkan waaye meesha dadkeena aan rabno inay ka soo galaan oo ay warka ka helaan saxda ah oo dalkooda looga warramo meeshan inay noqotaan rajaynaynaa insha Allah tacaala waan u hambalyeeynaa meel kasto ay joogaan qurba joogta Soomaaliyeed waxayna tani tusinaysaa ahmiyadda ay xukuumaddan siinayso qurba joogta Soomaaliyeed in xaruntan gaarka ah in ayaka loo dhiso ayagana lagu tilmaamo lagu magacaabo ahmiyadda ay leeyihiin 4 milyan ee naga maqan ay daliil u tahay waad mahadsantihiin